waraaqadii dhimashadiisa baa la soo saaray miidiyaha ayaana la keenay. wiilkan waxaa lagu eedeeyey in xubnihiisa lagala baxay oo weliba kelidiisa lagala baxay oo xaaskiisu ku qalqaalisay in uu maaragtay kelidiisa uu u gado si ayada nolol wanaagsan ay u hesho. Okay, inta aan sheekadan idiin bilaabin videogan xaqiisa si repost aad buu muhiim iigu yahay TikTok like na saara konkana follow soo dhaa Facebook dagada soo follow soo dhaa maasantiin. Okay, xalay toole TV-ga ayaa laga wareystay gabadhan waa taqaani sax shikadiisa waxay tiri shalay toole actually tiri akoonkeeda soo fariisatay waxay tiri wareysiba TV-ga layga qaaday qaranka wadanka waana markii ugu dambeysay oo ninkayga sheekadiisa iyo xanuunkiisa aan uga hadli doono la socda. sorunta fiican uu igu taagnaa laakiin waqtiga waa ku daawado dhowr xabo oo la soo jarjaray baahada aan daawaday intaan ka soo fahmay oo 100% ba idin sheegay laakiin wareysiga oo dhameystiran waa soo dhageysan doona ayadan waa idin ka dabagel laakiin fana waa idin sheegay. Okay, horto wiilkani yes cancer baahayay cancerka waliba waxa ku dhacay mindhiciraha laakiin reasonka uu u dhintay baa la yiri ma ahan cancerkii hay wuxuu u dhintay beerkiisa iyo maaragtay halbowlihiisa uu istaagay yani wadnaha iyo beerkiisa uu istaagay buu sababsaday inkastoo anaga dhan aan imanano laakiin bani aadanka oo ogtay sababays iyo iska raadsanaa anaga waxa lagu leeyahay saas uu dhintay oo sababtaas uu dhintay laakiin waa la dhimanay at the end of the day sax. Okay, waxaa la yiri marka hadda sababta uu u dhintay waxa weeyaan beerka iyo wadnaha uu istaagay darteed ayuu u dhintay uma uusan dhimanin kansarka. hooyadii waxay marar badan carabka ku adkeysay oy tiri wiilkayga okay ayagoo isqaba bay kala tageen markay kala tageen maaragtay isku soo laabtay laakiin waxay kala maqnaayeen baa leeyahay muddo sanadka badan bay kala maqnaayeen markay isku soo laabteen bay tiri hooyadii wiilkayga markay naagtan isku soo laabanayeen wiilkaygu wuu nabad qabay wuu caafimaad qabay laakiin markay sas ugu soo laabatay uu soo ceshaday dhibaatadii iyo xanuunkii uu maaragtay qaaday uu la gudgalay. Tamam dabcan waxyaabaha ay maaragtay maamadaasi ay ku hadlayso of course I understand wiilkeedii baa dhinto qalbiga xanuunaya laakiin runta fiican I feel like gabadhan in la dulminayo. Okay, qofna ma jirto rabo in ilmihiisa uu agoon ka dhigo haday ninka nacday oo isarabin simply way iska furi kartay she doesn't okay we don't care. almuhim hadda marka xalay tool wareysiga laga qaaday naag horta waxaa loo keenay oh my god waxaa loo keenay naag hadal yaqaana oo carab ku seefla ah baa loo keenay naagta wareysanaysan ka hadlayaya carab ku seefla ah runta fiican hadal yaqaan qof hadalka heli garanaya ahayd waxay tiri laba guri ama laba apartment gaari 1 million pound 1 million sterling wadankaasi ama lacagta Guinea bay dhaan lacagtooda 1 million Guinea gaari joogaad ku socotaa laba apartment baad leedahay saacada hadda aad wadatay tiri oo iigu timiday 50,000 oo maaragtay lacagta wadanka ayuu joogaa. Okay, so marka say ku dhacday adoo idinka waxaanu hantiya heesta in maaragtay aad ahdid odaygayga waxaan ku caawiyaa malahan odaygayga daawooyinka fanaaniin badan baa caawiya fanaaniinta caawiya waxa kamid ah oo ra'iiska ah Taamir Xusni waxay tiri saacadana hadda anigu wato Taamir Xusni baa ninkayga hadiyadaan ugu keenay mana uu sarbin inuu gado waxa lagu okay gaarigana waxay tiri gaarigana gabadha asxaabnahnay ayaa maaragtay magacayga iigu qortay temporary ahaan inaan yara wato laakiin okay gabadha ma la wadaagi kartaa waxay tiri gabadha marabina magaceeda sheego in media lagu ogaado the privacy-geeda la daba galgalo ma rabto waxay ku tiri zamankan aad joognayaa waa qofka gaari 1 million jooga qiimihiisa ku siinayo. Okay, tamam yani 1 million oo Guinea lacagta wadankaas waa lacag aad u tiro badan way anu barigan uga $100 ayaa waxaan uga soo tagay 1750 oo Guinea wadankaas u ahaa marka wadanka tagayna wuxuu ahaa 400 oo Guinea $100. tamam inkastoo 2 sano iyo barcaama leebaan joog wax badan joogin. Okay, so far ayaa ku godan waxaa kaloo hadda ka hor la siiyay uu siiyay sheekhan oo imaaraatiga ah 500 ama $500,000 oo dirham. Okay, $500,000 dirham waa lacag badan
lacag badan ilaahay baa runta fiican jecel mugtay waa lacag badan waa lacag $100,000 Mareykanka ka badan tamam aniga hodanay hadda og in gabadhaas la dulmiyey baa at the same time qiraaya inay gabadhaani lacag financially yani ay ka samaysay mawduuca ninkeeda iyo at the same time haddana markaa influencer aa tahay waxyaabaha caanimada ay ku fiican tahay kamid mugtay shiid ma noqonaysa I don't know that's what I believe okay maybe I could be wrong lakin you know maybe dadka same time igu media ku jira wadankii jooga yeah maybe way struggle garayna lakin haddaad taqaanid how to use your mind especially aad caan tahay by bahasha weyn maysid that's what I believe maybe ma aqaani almuhim lakin waxaa gabadhaas lagu dulminaya waxay tahay oon dareensanay in lagu dulminaya inay ninkeeda ayada ay sabab u ahayd inuu dhinto okay qofka uma baahnid inaad dishid daanacdi waa iska furi karta danahaaga raacanaysa sax oo naag jecel ma jirto ilmeyga agoon waaye in la dhaho okay laakiin mawduuca lacagtan iyo dhaxalkan iyo hadda hooyadii wiilkan one of the reasons ay leedahay wiilkay qabriga laga soo saaro hala baaro maalin walbay tviyada u taagan tahay lacagay rabta waxay taagan tahay wiilkayga lacagtuu ka dhintay dhaxalkii baa rabaa inaa idinla qaybsadaa rabaa dhaxalkii taagantahay tanna marka waxaa ka dareemay inaysan rabin dhaxalka lala qaybsado oy rabto wixii maaragtay dilaaw naxariistay wiilkaas kasoo haray ayadii labadeeda wiilay gabar bay way sabayda wey in ayadii wiilkeedu iyadii caruurteedu de maaragtay iskaga noolaadaan noloshooda inta ka dhiman nolosha ku maaraya duqdaana waxay rabtaa beeso okay that's what I believe almuhim waa qaldanaan karaa I don't know it's my opinion lakin هذا الشيء كذا أنت أساك سوبر لكن حلقة ويدرت لبا ساعدود ويا محلي هذا وريسي وأسودي كيسنا يدي كده جينا شورت كاتس وايدين سو مهمة ده يدين سوشيا باي هذا فيديو كان حقيقي سيزا مهمة ده يسوشيا دي كان أركايدين فيرنا لا كفتن انتاس وارون تكفتن معهن باي دراما عصب بايدين سوحلي نكان إيا ناكتان سوشيال ميديا أيسكو سوفريستين ما كوريسا داكورين دون ورانا كده جينا intaana sheekadeediin bilaabray tiktok videoga repost aad buu muhiim ugu yahay followday soo dheh like commentiga iyo repostiga waa dhinkin oo maasantiin okay ninkan iyo naagtan hadda ka hor waa kasoo hadlay dadkii xasuusta commentiga usoo gala labadan qof waxay kasoo jeedaan wadamadaasi carabta commentigeedin kusoo sheega wadanka okay waa influencer hadda ka hor waxay horta isku dhaleen laba wiila sheekadooda maadaama waa uga soo sheekeedo tafaasiil ah ama faahfaahsan waa idin kormara hadda 8 sano isqabeen laba caruur isku dhaleen labada caruurna laba wiil weeyaan way kala tageen ahayd markay kala tageen social media la iskaga dhaga hadlayay dan si isku dhaga hadlayeen bay haddana isku soo laabteen markay isku soo laabteen haddana naagta ayadoo qeylinayso bay video soo dhigtay videogaas hadda waxaa u malaynaa February ama March baa kasoo hadlay ahayd ay dhahayso wuu i dilay wuu i xaday lacagtaydii dahabkaygii adduunkaygii oo dhan buu qaatay dhulku i jiiday waa kaas nabaradaasoo dhan uu i gaarsay bla ayadoo leh bay media soo fariisatay muddo yaroo kooban kadib naagta videogii way ka qaatay markay week la joogo haddana way isku soo laabteen waxay yidhaahdeen soo dhawaada anagaa familia anagaa ilmo isku dhalnay anagaa shalayna idin imaanay maantana anagaa heshinay waxba idinkama gelin danihiina raacda iska soo jareen says doontaba ha noqotay dadkii reer comment ilaa reer comment meel walba waa jooga balaaye idin qaadama idin dhihi karmi idin abeerkan waa idin jeclahay haddii kale anaa hadda anaa iga ballaarinaysan haddaa idinku soo kala khatiraali noqdo waa jirtaa calankiina kor allah ka yeela reer comment meel walba waa joogaane waa laga ballaariya naagta caaldhe shalayna adaa ninka u niikinaysay shalayna adaa soo oynaysay maanta wixii ka dambeeya adoo oynaysa haddaba yaan ku arkin gombar gaabanaa kuugu fadhina ay taagan yihiin say doontaba ha noqotay naagtii way isku soo laabteen haddana way kala tegteen haddana mar labada isku soo laabteen hadda marka way kala tegeen for the last time waxay yidhahdeen waa kala tegnay maaragtay ilaahay qof walba nasiib khayr qaba ha siiyo aan kala danaysan iskuma soo dhagaalayno social media iskuma soo fadhiisana bra waa fahmi kartiin okay naagtii soo fadhiisatay waxay tiri aniga ilmahayga maanta haddaan dhinto qof maaragtay keergaraynayo ma jirto ilmahayga $1 layguma siiyo layguma biilo anaa inta kana anaa bay soo dhaaday shalay tole video marka live la soo duubay iga soo horbaxay haddana caawa soo biibaa iga soo horbaxay wuxuu yidhi aniga lawyer baan ahay inay wax bartaanahay 8 sano isqabnay 5 sano anaa reerkayga biilanayay anaa reerkayga inta ka baxayay social media naagteeda markay soo gashay dabcan ay caan noqotay noloshii way isbedeshay lifestyle-kii way isbedelay waxaas maaragtay dee awoodeeda way ka badnaan weyday aniga ilmahayga waa biisha aniga ilmahayga lacag waa siiya intaan ka dhacay mar dambe aan liigu soo dhaga hadlin
ilmaha naga dhexeeyo caawa haddaan dhinto ilmahayga cidna meestaana dhoweysaa taasna waa qalad layga galayo reer comment marka waa taqaaniina gambar gaabanaa loogu fadhiyo waxay taagan yihiin waxba hanoo sheegina sheekadiina idinka isku haysta haba noo sheegina waxbay taagan yihiin ma ku raacsan tahay commentiga igu soo sheega